بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحربالك أنا كهلا موضوع عوان كيسو ياهي parenting styles أما نوعية الله قيبي والدين تمرك لغا فيرين يقابك إلمهوض وبرباريان موضوع عن كفيرين دونا from psychological point of view oo cilmi nafsi ahaan baan u fiirin doonaa waxaana ka hadli doonaa duruqda kala duwan ee waalidiinta isticmaalaan marka ilmahooda barbaarinayaan iyo dariiq kastoo saameynta uu ku yeelanayo ilmaha shakhsiyaddooda dhismaheeda afar nooc ay u qaybiyaan psychologistiska dadka cilmi nafsiga bartay waalidiinta afar bay u qaybiyaan afartaas waxay kala yihiin authoritative parent waa alwaalid almushajic almushrif waalid doorkiisu uu yahay inuu ilmaha waxay uu ka dalbaayay ku dhiirigeliyo kuna ishraafo waalidka nooca labaad waxa weeye waxa la yidhahdaa authoritarian parent waa waalid almutasallit waa waalid waxa uu ka dalbay ilmaha u arkay inay u fiican yihiin qasab iyo muquunis ku marsiiya nooca saddexaad waxaa la yidhahdaa permissive parent waa waalid almutasaahil oo wax badan sahlada ilmaha xanaan iyo naxariis iyo maaragtay kolkoolin siiya laakiin mataalib iyo xisaabtan aanan maaragtay ka dalbanin ama aan ula imaanin nooca afaraad waxaa la yidhahdaa neglectful or non involving parent waa alwaalid allaamubaali waalid ilmihiisaba iska dayacay waxba aanan ka danaynaynin naxariis iyo kolkoolin iyo maaragtay wax u haayana ma jirto oo macnaha mashaacir ah iyo waalid aanan la xisaabtamaynin ilmihii oo aanan wax mutaalib uu ka dalbaayana aysan jirin afartaas nooc qasab maaha waalidku inuu noqdo nooc kamida 100% laakiin nooc kastaba astaam ayuu ka yeelan karaa waxaana dhici karta inuu hal nooc buto kuwa kalena uu astaamahooda qaar kamida yeesho marka mid labaad inuu isku darsado oo mid u badan yahay kan kalena qaybo uu ka leeyahay dhici karta ama wax lamida haddaan ku bilaabno marka nooca koowaad oo loo yaqaano authoritative parent waa alwaalid almushajic almushrif waalidkan ilmihiisa wuxuu u dejiyaa ahdaaf sare oo asaga la sareyso uu arkay in ilmaha u fiican tahay ahdaaftaas waa ahdaaf macquul ah oo caqligal ah marka laga fiiriyo ahdaaf ilmaha ay fulin karaan reasonable ah oo suurtagal ah maaha wax oo khayaali ah oo is ilmuhu ka bixi karin waxayna ku dhisan tahay ilmahaas awoodooda iyo qudraadkooda wax ay ka bixi karaan waalidka isagana u arkay inay yihiin wax qiimo leh oo sare ilmihiisa inay gaaraan waalidkan wuxuu mar kasta bixiyaa sharax arrinta uu ka dalbayo ilmaha in hadafka ugu yeeriyo inuu sharaxo uu yidhaahdo sababta laga rabo maxay tahay haddii arrintan ay xaqiijiyaan maxay ku gaarayaan maxaa u hirgalayo u sharxayaa waalidkan wuxuu kaloo ku daraa guidance inuu ilmihii hago oo arrintii uu ka dalbay uusan uga tegin keliya waa arrintan ka dalbay iyo waa idin sharxay keliya uusan uga tegin inuu daba socdo arrintii hirgelinteedii haddii ay culays kala kulmaan qaabkii inuu u furdaamiyo inuu u sahlo inuu fahansiiyo caqabaadkii kale ka hor yimid si u xalin lahaayeen maanta oo dhan hayid baa la socoto waxaa jirta oo ay ka hadlaan dadka psychologiga yaqaana waxa la yidhaahdo ilmaha markay korayaan marxalad kasta ama da' kasta ay marayaan wax ay awoodaan baa jira marxaladaas inta ay leeyihiin oo keligood ay samayn karaan waxaa la yidhahdaa zone of actual development zone of actual developmentiga waxaa ka sareeya zone kale oo ilmaha uu awoodi karo u gaari karo laakiin wuxuu u baahan yahay qof ka khibrad badan ka aqoon badan ama ka weyn in uu saacido u gaarsiiyo marka zonekaas waxaa la yidhahdaa zone of potential development waa awooduhu ku keedsan oo uu maaragtay xaqiijin karo lakin waxay u baahan tahay qof ka saacida oo inuu soo saaro awoodahaas qof ka khibrad badan u baahan yahay marka waxaan mithaal usoo qaadanaynaa laba mithaal aan soo qaadanayna mithaalka koowaad waxaa waaye guidancega muhiimadda uu leeyahay matalan cunug baa wuxuu isku dayayaa basiid yani box ayuu rabaa inuu furo boxkii marka meesha laga furayo maahane meel kale ayuu damacaya inuu ka furo matalan gadaal bar waa inuu ka furo oo ay adag tahay oo aad isaga xiran yahay marka hadduu sii wado isku dayo inuu furo waxaa dhici karta inuu boxkii dhan kharibo waalidkii marka waxaa dhici karta inuu iska fiiriyo dhaho meeshuu la taga aragno cunugii boxka loo jaajaxo oo ka halaabay ama in waalidkii dhaho keen boxkii isaga uu furo labadaba wax faa'iido cunuga uma soo kordhin laakiin guidance-igu waxaa maxay inuu yidhaahdo waalidkii boxkan meel mucayana laga furi karaa meel kasta lagama furi karo raadi meesha laga furi karo ma garatay
cunuga waxa laga yaabaa inuu raadiyo uma kada meelo ogaado meesha hadda ku xarbinayay inaysan ahayn meesha laga furayo ama ogaado qodob marka hore uusan ogeyn u haystay markasta laga furi kare inuu leeyahay meel mucayana oo ay sahlan tahay in laga furo kuwa kale hadii la furo xataa waa dhib badanta mithaalka kale waxaa waaye waxaa laga yaabaa inay aragtaan marar badan ilmo yaryar oo qudraad cajiiba lagu arkay waa dadka qaar yadaan waa mucjizo oo waxyaalo cajiiba ka hadlayo arrimo cilmi oo dadka waaweyn qaarkood aysan garanayeen ka hadlayo oo maqal soo bandhigo oo maarata dad badan ay isugu yimaadaan oo ay fiirsanayaan laleeyahay cunugan waa mucjizo qaar badan oo kamid maaha inay mucjizo yihiin ama qudraad ka badan ilmaha kale ay leeyihiin ama maaragtay cajiiba ay leeyihiin maaha ee waxay u badan tahay qaar badan oo kamid ah in dadkii barbaarinaya ama waalid ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan in ay qudraad ku kaydsanaa ilmahan ay u sahleen inay iska soo saaraan oo ay soo bixiyaan oo ay soo bandhigaan biidn illah marka taas marka muhiimadda waxayna tusaysaa ah in aan ilmihii la saacido oo la gacan qabto oo la hago iyadoo taas macnaheed aysan ahayn in wax kasta loo qabto hadii loo qabto waxba kama barayn laakiin markaad hagto khibradaadii u kordhiso waxaa imaanaysa in wax uu keligii gaari karin in ay u suurta gasho inuu markaani gaaro marka astaamaha kale uu leeyahay waalidkan waxaa ka mid a in waalidkan xooga saaro waxa la yidhaahdo positive feedback ilmaha markii arrin laga dalbo ama hadaf loogu yeero hadafkaas waxaa dhici karta inay u dhaqaaqaan oo wax ka qabtaan waa positive in ay wax ka qaban waayaan oo dib u dhaca kaga dhacaan waa negative labadaba kee uu xoojinaya waalidkan wuxuu xoojinayaa positiveka markii uu cunugu wax qabto markuu xaqiijiyo in uu sheego tilmaamo ammaano dhiirogeliyo u yidhaahdo maasha allah wax fiican aad qabatay laakiin markuu negative jiro oo cunugii nuqsaan sameeyo hoos u dhac ku yimaado aada xoog uma saaro ishaaro kaliyu kaga kaabsoomaa taa marka waa muhiim waxaa arkaysaa waalidiin badan oo ilmaha markii ay wax fiican qabanayaan aanan ka hadlin waxba ka taabanin keliya maalintuu cunugii khalad sameeyo markaasi qabanayo cunugii marka wuxuu leeyahay intaas aan wax qabanayo wax fiican aan sameynay waalidka ma hadlin ima dhiirigelin ima dhihin maaragta waxba kama sheegin laakiin markii aan khalad sameeyey maarata qof khaladkii ila fiirsanaya miya cunugu qof iska yar inuu marka xataa cuqdad gasho isdifaacid gasho maaragta waxaa kaloo kasii daranba in mar kasta haddaa khaladkiisa ka hadasheed keliya oo wanaagiisa aadan ka hadlin maxaa ku beeraysaa cuqdad nafsi waxaa ku beeraysaa inuu naqsigiisa aada soo muujisid naqsiga qofka lama rabo in la dul istaago naqsiga waxaa la rabaa in la ishaaro wuu ka baxaya qofkan laakiin positiveka waxaa la rabaa in la dul istaago si uu qofku aan ugu sii dadaalo u badiyo marka macnaheeda maaha inaan leenahay wax kastoo qofku khaldayaan laga hadlin laakiin si kooban ha dul istaagin ha noqonin qof maalinta la khaldamo keliya hadlo oo inta wanaaga la sameynaya aanan waxba dhiirigelina sameynin astaanta kale uu leeyahy waalidka waxaa kamid a inuu ilmaha ku dhiirigelina iyaga isdiraan wuxuu rabaa waxaan u sharxay ugu yeeray in iyaga ka yimaadaan oo wax maaragta iyaga ka qanceen oo iyaga ay sameeyeen ay noqdaan hadhow marka sifay u noqonay qofkan waa inuu ka qancay jeclaystay oo asaga sameeyey oo maaragta waalidka arrinta waa ka gudubtay marka waa muhiim waalidka ilmihiisa wuxuu siiyaa xorriyad laakiin xorriyad xad le wey xorriyad oo iska furan oo maaragtay aanan xuduud lahayn dhibaato badan ay leedahay ilmo waa u yaryahay khibrad badan ma leh waxaa dhici karta waxyaala dhib u ah inuu jeclaysto waxaa dhici karta waxyaala dhib ah inuu raadiyo kuwaasoo dhow xataa laga yaabo inuu dhibaatada uu kala kulmo waalidka uu yidhahdo maxaa iga celin weysa adiga aqoon bad u lahayd maxaad iga qaban weysa marka haddeertaan inuu waalidkii cunug inuusan caburin waa fiican tahay inuu daqdiga ka qaado way fiican tahay inuu xorriyad siiyo way fiican tahay laakiin xorriyad oo maaragtay xuduud leh inuu siiyey dhanka ciqaabta markaa u imaano waalidkan aada wuxuu isaga yareeyaa ciqaabka jasadiga ama physical punishmentiga aada u isaga yareeyaa wuxuu isticmaalaa consequence waxa cunugan uu sameeyey oo khalad ah in ay ka dhashaan cawaaqib wax uu ku waayo wax uu maaragtay uu kala kulmo oo markaasi consequence si ay ugu beeranto in wax alla waxaad samayso natiijada caaqibo ka dhalanaysaa jirto oo lagaa rabo inaad taxamusho haddii kaleda caaqibadaas taxamuli karin inaad ka fogaato fiican iyadoo marka horeba shayga fiican lasoo jeclaysiiyey haddana inuu cawaaqibtii xumeyd ka cararo wuxuu waalidka astaamihiisu kamid a inuu ogol yahay ilmaha inay discussion la sameeyaan oo ay maaragta arrintii ugu yeeray ama dalabkii ama hadafkii u yiri sameeya xaqiijiya inay wax ka weydiiyaan inay maaragtay xataa wajhada nadarkooda soo muujiyaan taa maxay faa'iideynaysaa laba qodob muhiim qodobkooda waxaa waaye
markuu cunugu ictiraad muujinayo uu leeyahay arrintan si kale uu arko waalidka hadduu dhagaysto wuxuu ogaanayaa maxaa cunugan u diidan inuu arrintan horta u dhaqaaqo waa maxay shayga ka hortaagan inuu arrintan xaqiijiyo taa markuu cunugii waalidkii ogaado waxaa usoo baxaysa in sharaxaad uu markii hore ku darin in loo baahdo sharaxaad uu markii hore isdhahay fududaystay ama uu xataa ku baraarugsaneen in hadda usoo baxdo uu maaragtay faahfaahin ku daro cunugii markaa uu fahmo iyadana waa muhiim qodobka kale waxaa waaye in ilmahani marka loo furo niqaash oo la dhagaysto inay ku beeranta sifaha iyaga dadka inay dhageystaan laakiin markii waalidka uu noqdo waalid isaga kaliya la dhagaysto ilmaha iyagana dhaqanka inay ka qaataan dhici karto oo iyagana ay dhahaan markay awood helaan in iyaga kaliya la dhagaysto laakiin waalid ogol in la dhagaysto wax la weydiiyo oo maaragtay iyagana dabeecadaas inay u beeranto intaasaan uga bixinaa xalaqada koowaad aada umahadsantihiin la socda xalaqaadka ku xiga ay soo socda insha allah umahadsantihiin